فقشين إن من كان لي هذا dhulbahanto way wada noolaan karaan wallahi aan la layn karin iyo billahi taala hadii la isku dayo in la laayo oo loo xoog sheegto la isugu tago marka Soomaaliland bay in badan ku tiirsanaayeen hadii dhaqaale tahay hadii ay maartay ciidan loo qareemeeyay ay tahay hadii technical siinay ay tahay absolutely weyn bay Soomaaliland u qabat laakiin de anu waa intaasaan kaga baxaya waa la yaab berigi dhaweyd maartay maxay nimankii waxaan arkuun dhulbahantaan u leey wareed xagaa ku socotaan warmiyina marka waa ku soo celiyay anigu Suudaan way inaad wad maasan tahay waxaan Yusuf ban ayaan hadii halka dhigo yeeyo doon Cabdullaahi oo nabiil sheekh Ali soo casuumay marka isaga inoo warrami doona laakiin waxaan rabaa inaan dhowr qodob aad iyo aad muhiimad weyn ugu leh qadiyadan iyo sida aynu wajahayno hadii aynu nahay Soomaaliland iyo shacbigeeda in aan halkan shaxdeeda idin siiyo horta marka hore waxaynu aad iyo aad uga xunnahay in dad shacaba oo guryahoodii fadhiya dhibaato ay soo gaadho aad iyo aad baynu uga xunnahay labada beelood ee walaalaha ee ehelka dadka muslimka ah ilaa qiyam baynu leenahay dad diin leh oo Ilaahay ka baqayo oo xalaal ku dhashay nahay baaq nabadeed baynu marka hore u diraynaa labada qoloba waxaynu u baaqaynaa nabad iyo hadii alla ka dhigayo maaragtaanay in aqligu soo noqdo oo dhiigga daadanaya la joojiyo in dhiigga daadanaya la joojiyo loo kaadiyo cagta loo dhigo ciddii wax ka geli karta nabadeynta labada beelood ee walaalaha ah ee meeshaas wada deganna ergada laga aqbalo marka mabda guud waa kaas weeye waa nabad baynu ku wajahayna hal qodobna waxaan leeyahay shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkaasi waxa weeyaan waxaan ka digayaa in marka ay wax ka dhacaan halkaas ama nimanka la yiraahdo Faqashini dagaal qabsado in markiiba la aado Somaliland bay ka raaceen dhulbahante ama way naga hor yimaadeen ama way nagu bari fureen ama Somaliland intay joogto waxaanay Somaliland taraysay arrimahaasi marka laga hadlo dhaqanka gobonimada iyo xeerarka soo jireenka aynu leenahay ceeb bay ku tahay kadaba qaadan maayo hadda Jeelani ogaad Jeelani isagu taariikhdu buu ka warramay laakiin dad waxa jira si qaab taran u hadlaya oo aan arkay oo shacab u badan oo dad maaragtay iska maarta Faqashini Somaliland bay naga raacday wixii maaragtaanay ay doonayeen bay heleen wax noocaasa luqadaas luqad gobeed ma Faqashini iyagoo Somaliland ka hor yimi oo inaba dagaalamay oo hormuud ka noqday dagaalkii Somaliland ka dhanka ahaa hadii laga gardareeyay waan u hiilinayna hadii laga gardareeyay Somaliland way u hiilinaysaa dawladda jamhuuriyadda Somaliland waajib ka saaran madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxa lagu dhaariyay dastuur lagu dhaqayo dal la yiraahdo Somaliland oo xuduuda cayiman leh muwaadiniin leh calan leh ciid leh Faqashiniinta suu ka mid yahay dawladda jamhuuriyadda Somaliland waa ka mid ciidanku ku jira baarlamaanku ku jira saraakiisha ciidamadu ka mid yahay golaha xukuumaddu ka mid yahay guurtidu fadhiya every level oo dawladda jamhuuriyadda Somaliland ay qayb ka yihiin marka dagaalkii 2023 dhacay iyo dhibaatadii uu keenay dib loogu noqon maayo Somaliland mar walba waa inay fulisaa waajibaadka qaran muwaadiniinteeduna waa inay ixtiraamaan waajibaadka qaran dalkeenu ku asaasan yahay dagaalku wuxuu ka dhacay meel Somaliland ka mid ah wuxuu dhex maray dad jamhuuriyadda Somaliland ka mid ah labada qoloba wanaag iyo gobonimo aynu la jecelahay laakiin sidii nabigu sallallahu alayhi wasallam sheegay
ninka garta daranna waa in ummadda laga qabto la yidhaha u kaadi nasuusta oo dhan waxaa jira waxay tilmaamayaan oo ah dee dadka markay islaamku isku dhaco in la dhex galo oo la heshiisiiyo wey marka ninkii diida baa lala wada diriraya marka fiqashini nimanka la yidhahdo umana sheegan mayno odhan mayno beri baanu aanu halkaa somaliland joogi jirtay bay idin koolkoolin jirtay oo haddii ilaahay ka dhigayo idiin roonaydo hadda imika idinkaa xaggaa naga raacay waa idinkaase waa la soo dhoweynaya weliba dadka deriska la'ah isaaq gobolkaas suul deganna waajibaad gaara baa ka saaran wax alla wixii haddii alla ka dhigayo raggaa la tari karayo awal bay naga dhexeeyey ee soo jireenka ahaa dhexda ka tuuri mayno just because of dhowrkii sanadooda ugu dambeeyey taladii khaldanayd iyo weerarkii xamar ka yimi haddii sida hadalka loo dhigay ascaanood somaliland laga qabsaday fiqashini somalilanta dadka iyo dhulka laga qabsaday bay ka mid yihiin dagaal unbaa dushooda ka qarxay marka xaggii loo badnaa bay raaceen duruufays ka jirayba xilligaana way jireen oo haddii si caqliya maaragtaanay looga baarandego cid laga fahmi karto marka waxaan uga digayaa dadka goobta ee jamhuuriyadda somaliland ninka aan arrintan si qof xilkasa uga hadlayn ha iska aamuso haddaadan sidii nin goba uga hadlaynin oo haddii alla ka dhigayo waxa weeyaan because ninka markuu soomaalida waxay yidhahdeen bawda rag hadba mid baa qaawan nimankaa maanta dagaal baa qabsaday guryahoodii oo waxaynu arkaynaa haddii alla ka dhigayo lala dhacay hubcul culus waxaynu arkaynaa dad maata ah oo muuqaaladoodu baraha bulshada oo dhan qabsadeen oo la isku kor qabsaday hortoodana lagu laayay ehelkoodii waa foolxumo waxaynu arkaynaa ciidankii maamulkaas soolbari oo labadii beelood ee meeshaa wada deganaa la kala safan hadal iyo hilbaba kala qaran suldaan cabdikariin caawa wuxuu halkan hoosta ka xariiqaya fiqashini nimanka la yidhaahdo dhulbahanto way wada noolaan karaan hadday doonayaanna inta si in wax noqonayaan soolbari waa wada joogi karaan iyo maamulka ay wada dhisteen laakiin lama layn karo wallahi inaan la layn karin iyo bilaahi iyo tallah haddii la isku dayo in la laayo oo loo xoog sheegto la isugu tago daawan mayno sababtoo ah waxa weeye waxaanu haynaa haddii alla ka dhiga boqol adilo oo noo banaynaya inaanaan daawan marka caqligu ha shaqeeyo haddii ragga qaar ay ugu muuqato waa nimanku waaba iska godoonoo qolyihii hawiyana isma gaarayaan oo 800 kilomitir iyo ka badan baa u dhaxeeya somalilandna waa kala dhinteen iyo isaaqi dhulkaa deganaa intaan somaliland ba la isla gaarin bariga ee ay deriska ahaayeen waxaan leeyahay waa la tahay bay yidhaahdaa